dekada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa maanta gashay maalintii afraad oo ay xiran tahay kadib khilaaf culus oo u dhaxeeya wasiirka wasaaradda dekadaha maareeyaha dekada iyo shirkadda Albayrak oo gacanta ku haysa maamulka dekada kaasi oo salka ku haya lacag dheeraad ah oo si lama filaan ah loogu kordhiyay ganacsatada isticmaasha dekada. wararka la helayo ayaa sheegaya in shirkadda Albayrak iyada oo kaashanaysa maamulka wasaaradda iyo maareeyaha dekada ay ganacsatada ku soo rogeen canshuuro iyo khidmado cusub oo aan hore u jirin taasi oo si weyn uga careysiisay ganacsatada badeecadaha kala soo dega dekada Muqdisho. ganacsatada ayaa ku tilmaamay lacagahaasi kuwa sharci darro ah isla markaana aysan waafaqsanayn heshiisyadii hore iyo nidaamka canshuuraha dalka gaar ahaan midda dekada iyaga oo diiday inay bixiyaan. arrintaasi ayaa keentay in shaqadii dekada ay gabi ahaanba istaagto maraakiibtii iyo badeecadihii soo degayayna ay hakad galaan. waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in laba ka mid ah ganacsatada la xiray kadib markii ay si cad uga hor yimaadeen bixinta lacagaha lagu soo kordhiyay taasi oo sii hurisay xiisadda isla markaana dhalisay cabsi ah in arrintu isu beddesho khilaaf ballaaran oo saameeya dhaqaalaha guud ee dalka. ogeysiis 8 Febraayo isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho waxaa soo booqanaya dhaqaatiir khubaro caalami ah oo ka socda Hindiya. Dr. Runa Ajaria qabiir ku takhasustay cudurrada haweenka iyo dhalmalaanta iyo Dr. Navin Jandara qabiir ku takhasustay kelyaha kaadmareenka iyo taranka ragga. waxaad ka heli doontaa la talin baaritaan iyo qorshe daaweyn oo gaar ah. isdiiwaan geli hadda boosasku waa xadidan yihiin ha seegin fursaddan caafimaad ee gurigaada kuugu timid.